sideed bilood ay joogtaa xukuumaddeenu waxa la baaskareeyay hadda budget la baaskareyn doona markii ugu horeysay kow annagu inaan bixin doono wax walba ku baxa si loo dhameystiro dastuurka qabyada ummadda Soomaaliyeed dadka Soomaaliyeed ayaa bixin doona lama soo tuugsan doono sideed bilood ay joogtaa dawladdeenu sanadka soo socda iyada kordhin doonta dhaqaalaha looga qaban doona amniga sideed bilood ay joogtaa sanadka dambe markii ugu horeysay ayaa waxa hadii Ilaahay yiraahdo la dhisi doonaa iskuulo iyo isbitaallo oo lagu dhisi doono lacag laga qaaday shacabka Soomaaliyeed oo dunida laga soo bariyay hadii Ilaahay yiraahdo sideed bilood ay joogtaa dawladdeenu waxaan abuurnay in ku dhow 5,000 oo qof ay shaqo u abuurtay waxaan rajaynaynaa sanadka soo socda hadii Ilaahay yiraahdo inaan shaqo u abuurno in ka badan 20,000 oo qof bilowga sanadka soo socda rantiisa sideed bilood ay joogtaa waxay ku guda jirnaa inaan qaabayno ciidamadii inaan tirino وسمين حريو عن قابل إن وحكي قبلنا أمنية مجالة هي كم بنانك إن نسوك أن الدولة الفدرال دولة الدحية دولة قبلاتي ذا وبناء كذا دولة الدحية وما حدا ودنا يسقوا فقان إن سنة كسوس عضا هدي إلى إرادة وأحاله سنة لقى شقاية هل شيء وكليه إن لقات كذا عدو ومد الصومالي ذو الشباب sideed bilood ayaan joognaa waxaan rajaynaynaa bisha December inay noo sheegaan IMF iyo World Bank igu shaqada aan soo qabanay darteed inaan ka gudbi doono tallaabooyinkii ugu dhibka badnaa mid kamid ah oo naloo aqoonsan doono in shaqada aan qabanay awgeed nala ku aamini doono dhaqaalaha aan hore nala kugu aamini jiray sideed bilood ayaan joognaa waxaa la bilaabay markii ugu horeysay in nala siiyo dhaqaale dawladda Soomaaliyeed iyadoo ma musho sideed bilood ayaan joognaa waxaan rajaynaynaa inaan mar dhow bilaabi doono dib u soo nooleynta mashruucyadii dalka oo ay ka mid yihiin dhisidda jidadka dhisidda dhismooyinka dawladda iyo dawlad goboleedyada Soomaaliyeed xiriirka dawladda federaalka iyo dawlad goboleedyada xubnaha ka ahna waxa uu taagan yahay meeshii ugu fiicnaa waa muhiim in mar walba lagu sii dhiirado oo laga sii shaqeeyo in la sii adkeeyo muhiimaddu marka waxay tahay markaad halkaas joogtid marka ay ku muuqato waxa uu dhibkaadu yahay iyo sidaad u xallin lahayd oo 27 sano aan ku soo jirnay dhibka hadda aan maanta ku jirno macnaheedu waxay tahay shacabka Soomaaliyeed waxa laga rabaa inaad adkaysataan inaadan aqbalinina in dariiqa laga leexiyo dawladnimada